dowladaha wada saasay heerkeeda sare gaadhay maanta wadaya caybsaday eedaga hoostiisa hal laydinma dheera midnimay hodan ku gaadheen idinkuna haliyay ka cad wada uruftaan oo hayb iyo qabiil waa waxa hoos inoo dhigay oo waxayna helay oo ay dilay tan iyo habi waxaanu u mahad celinayaa 1001 goor gabdhaha dhulbahante meel kastoo ay joogaan adduunyada afartiisa dacal gabdhaha dhulbahante maanta waxay ku jiraan kaalintii ragga waxaa la doonayaa oo kale 4 hay-adood baa ugu waaweyn hay-adda dhaqanka la yidhaaho aqoon-yahanka iyo gaashaandhigga iyo culimaa awdiinka 4 hay-adood dhulbahante 2 hay-adood way shaqaynaysaa dhulbahantow 2 hay-adood shaqaynaysaa waa aqoon-yahanka iyo dhaqanka way shaqeeyeen maantana godkii madoobaa ee ayaanu gallay ilaahay wayna kaga soo saaray waxaan maayay maanta waxaynu isu sheegnaa ma hanin qolada heestaa ku heesi jirtay ma hanin hadal la is yidhaahdaa intayna halkan fadhinaan dhulkeena xorayn karta haddaynu hagar beelo inta halkaa iga soo horjeedaay waynu xorayn karaa dhulkeennii 2 mid yeela oo maanta saxeexda in warantumo laydin qaato xiniyaha laydinka tumo oo idoor idin tumo iyo inaad geerida qaadataan waxaana idinka noolaadaan waxaana dhigtaan ma soconayso run haddaynu isu sheegno dhulka yaanan ku dhiman yaan cid la aasin yaan rag dhiman iyo iblaabta kaga dhicin iyo wejiga kaga dhicin dhulkuna ha xoroobo ma soconayso waxaan oran lahaa kalada loo daayo dee awal bana waa haystay dibad iyo gudaba iyagu waxay soo jeediyaan uuna qaadan maxaynu uba labalabayn hadday dagaal tahay iyo hadday siyaasad tahay iyo hadday maalgelin tahay hadday waxay la ku xukumaan dee una qaadan ninkii diiran dee inaga ma ahaan dib magacaabay ee asaasay PhD miiran ahaa iyo injineerka miiran iyo korneyladeedii Axmed Shukri ka mid ahaa oo ragga hadayay oo ka mid ahaa gargaar ka mid ahaa rag hadday ku astiido xorey wada xoreyba shirkaan aqoon-yahanadiyooda iyadoo u saaray ee ay ilaasheen guddigii u ololeynaysay yaan idaacadaha iyo ku abiyey joorna waxasu kumaan darin waa intii hore khaatimo waa halkii wada taaganahay waxaan ku darayaa markii jawaabsuinaad ku dartaan shirkaan aqoon-yahanadiyooda iyada u saaray ee ay ilaasheen guddigii u ololeynaysay ee aan idaacadaha iyo ku abiyey joornaalka ee aan adduunyada dhammaan wada ogeysiiyey ee aan arbow maxamed iyo aadan ku casuumay ee aynu arligeenna maqan ku odoroosayno ee oktoobar iyo loo ballamay ciidda dabadeeda abshir dhaha ilaa inuu ducadii khaatuma ajiibo shirka ururkii jiisiiska iyo khaatuma astaysay ee adhaxyay weyntii qarnigan idamka loo siiyey ee ararkii noo kiciyo ayna falanqeeyey ee aynu taladii ambatiyo maamul ku abiyeyno abshir dhaha ilaa inuu ducadii khaatuma ajiibo shirkaan ardaagii casumiya aayu ku xishmaynay ee uu garaadka idman iyo shaaciyey ugaasku ee isimadoonnoo dhan iyo guurtidu adeecday ee odago iyo taleexuda xal loo daadshay abshir dhaha ilaa inuu ducadii khaatuma ajiibo laga soo bilaabo tallaabadii ugu horreysay ilaa maanta oo aan joogno odayaasha khaatuma waxay diyaar u ahaayeen dhulka maqan in la soo haddaadan dhulkaaga xor kuu ahayn laascaanoodna aadan haysan bahdilka ummadaada ku socota habeen iyo maalinna ay socoto wax kasta oo aada sheegatid waa hal bacaad lagu dhisi
ومركي لو غلب قاتي إن لديسو أرور مقعينا كهدلا أو كهدلا ساحدها دونك أو شيغا قردرada iyo kibirka iyo aabiga dalkeena lagu soo qaaday oo lagu qabsaday magaalo madaxdiisii iyo qaybo badan oo kamid adduunkana la gaarsiiyo annaguna aanu ka tashano sidii aanu uga xoroobi lahayn gardarrada iyo gumaysiga cusub ee lagu soo qaaday Khartoum State jidkii loo soo maray NSUM dhismaheedii SSC dhismaheedii ayaa Khartoum State walilaahi alxamdu wal minna ayaa iyadana loo soo maray waxa nasiib wanaaga inay hawsha ka qayb qaateen oo budnooga u noqdeen dadkii aynu weligeen batabaynay ee aqoon-yahanka ahaa ee siyaasiyiinta ahaa ee runtii Soomaaliya maanta dhigoodu uu aad iyo aad ugu yar yahay inay arrintaa budnooga u noqdeen ka qayb qaateen dhulkoodii ku noqdeen dhulkoodii iyo dadkoodii aamineen dadkoodii iyo dhulkoodiina u aaminayeen waqti badan iyo juhdi badan baa loo soo galay waad la socotaan shirarkii ka horreeyay Khartoum 1 waad la socotaan 15 xubnood oo reer Khartoum ee dalka ku wareegay bisha iyo badka ku wareegayay ee tuulo kasta tegay ee miyiga tegay ee meel kasta tegay ee meelihii la lahaa ma tagi karaan tegay yagoori laascaanood werwer meel kasta istaagay oo loogu soo dhaweeyay sidii madaxweynayaal loogu soo dhaweeyo ummadooda soo dhaweeyay waxaad mooyo qooqaaratiyo maluhu waa beene waxaad maagimood baa sokada kaaga soo maran rag baa arrintaa fikiray rag baa arrintaa mayalka u hayay arrimaha siyaasadda sidaa laydiin sheegay iyo inta meelood ay ka soo martay iyo ay ka soo degtay waad la socotaan ilaa kilinka shanaad ilaa Ethiopia ilaa Djibouti ilaa Nairobi ilaa Xamar iyo inta hawlood oo dhulka laga qabtay iyo inta Khartoum magaceeda la gaarsiiyay iyo international community-ga inta loo gudbiyay hadday safiir tahay hadday NGO tahay hadday tahay ma garanaysaa international community-ga hay'adaha ka degan Nairobi iyo meelaha kale inta loo gudbiyay si ay magaca Khartoum iyo dadka reer Khartoum inay yihiin dad iyagu dantooda iyo aayahooda ka tashaday oo aanay cidina magacooda ku hadli karin inay yihiin ayaa ummadda adduunka international community-ga Soomaaliya inteeda kale ayaa dhammaantood loo cadeeyay oo maanta aanu mugdi ka saaray waxaan rabaa saddex qodob inaan midba wax yar ka idhaaho midda ugu horeysa horta Khartoum dhulbahanta maaha qura Khartoum dhulka Sool iyo Sanaag iyo Cayni aynu degno dadyoba inala dega shirkii talaahna ka qayb galay xaqna ay tahay haddii inakuba xuquuqdeeda aynu rabno oo dagaal ka xigayno aynu rabno inaynu ka xigno iyo dhimasho kuwa inala dega aanu wada degnana inayna xuquuqda Khartoum ku yeeshaan dhexdeeda waa habboon tahay dadka waxaa ka mid ah Faqashini waxaa ka mid ah Gabooyi waxaa ka mid ah Kaski Qabe ya markaynu Khartoum ka hadlayno ogaada inay dadkaas inagu weheliyaan inaynu ummadda kale Soomaalida horseed ugu noqonana waa habboonta waxaa haddaba xaqa oo international community-ga iyo cid walba la filayay inay cagta mariyaan meel walba nimankaa isbiday inay dhulka qabsanayaan dhowr dagaalo way soo qaadeen waxay la hadheen ma jirin diyaarada oo MiG fighters baa ka dhignaa intii kale wixii qaranka Soomaalida uu lahaa iyo meesha keeneen guuldarraana kaga dhacday horta bal inaynu innaka lafteenu isu qirno in
aynu isdaafacnay oo qolyihii dadkii ka qayb galay dagaaladaas ay mudan yihiin in la xuso oo intoodii dhimatay jihaadka iyo mujaahidiinta ahna in loo duceeyo intooda dhaawaca ah iyo inta agoontaana aynu mar walba xusno oo ka warhayno laakiin midda muhiimkii waxa weeye siday u suurto gashay in nimankaa laysaga daafacay oo loo jebiyey oo haddana loo jebiyey oo haddana loo jebiyey innakoo aynan u yeedhan Chinese experts iyo Maraykan iyo cid halkaasaynuba duruus ka helaynaa aynu isku daafici karno كلها عدو عربي